Assalaamu calaykum asxaabta isku soo noqosho wanaagsan. Maanta waxaan rabnaa inaan sharaxno ee qaabkii aad C drive-kaaga daatadii aad ka bixisay aad ugu soo celin lahayd. Now in case hadda aniga waxaa total space aan haystaa waa 284 GB. Waxaa ka baxshay 88 GB, 67 GB, 1 GB. So partitioniskan waxaa u sameeyay haddii kaliya aad haystid C drive kaliya haddaa haystid daatadaada hadhow haddii window error uu dhaco in daatadaada la badbaadiyo way adkaan doontaa. So partitioning kale oo backup ahaan u haysatid waa inay jiraan. So partitionskaas aad ka qaaday waxaa la yidhahdaa C drive-kaada haddii macnaha kaba soo qaadba aad ka jebisid 400 GB oo kale ay ku soo harto maxaa la yidhahdaa sida hadda sawirkan oo kale meeshaan hadda wuxuu ka jebiyey intaasoo dhaatuu ka jebiyey waa C drive-ka ujeedaa maxaa la yidhahdaa guduud saaran calaamad guduuda saaran oo ah macnaha space inaysan ku filnayn. So sidaan oo kale hadday dhacdo macnaha windowgaada si fiican oo si proper si sax ah inuu u shaqeeyo way ku adkaan doontaa leanna waxaa ka jebisay amount aad u badan. So marka waxaan rabnaa inaan soo celinno amountigii aan ka jebinay like tan 20 GB ayuu haystaa kaasina wuxuu haystaa 30 GB. kontonkaas GB haddii aan damco in aan extend ku dhaho haddii aan rabo inaan ku dhaho extend window C drive-kayga haddii aan rabo inaan extend ku dhaho si aan u balaariyo wuxuu aqbali doonaa only available uu aqbali doono waxay tahay 9 GB oo keliya ma aqbali doono 30 GB iyo wax la mid ah xataa. So 10 GB xataa kaama aqbali doono. So maanta waxaan rabnaa inaan ku tuso trick ama tool kaa saacidaya xitaa in aad partitionkan oo 88 GB macnaha keligiis extend intaa ku dhahdid aad dib ugu celin kartid asaga oo dhan partitionka oo dhan intaa qabatid in aad dib ugu celisid C drive-kaada si uu kugu noqdo 400 GB ama windowgaada si proper ugu shaqeeyo xitaa adoo daatada ka bixinin 10 GB bis ka baxso ama amount 20 GB oo kale kala bax. So si caadi ah extend haddaa u dhahaysid makaa yeelaayo. So aan aragno marka waxaan imaanay window explorer-kayga si hadda u jeedid waxaa haystaas 69 GB. So inta ima waxaa dhahdaa show more options waxaa tagtaa manage. So waxaa dhahdaa disk manage. So waatana C drive-kayga haddii aan rabo kuwan kale inaa partitioniskan oo kale haddii aan dhaho like kan oo kale extend way iga diidaa isna inaa waa data inaa jebiyo waaye hadda kaba soo qaadba kan oo kale wuxuu haystaa kan oo kale wuxuu haystaa 30 GB 30 GB waxaa haysta dhiida tag marka waxaa ka jebisaa let's say waxaa dhahdaa waxaa ka jebisaa shrink volume. So volume markaad jebinaysidna waxaa lagaa rabaa inaad xisaabisid calculator soo baxso waxaan u baahanahay 10 GB oo kale ama let's say 15 GB aan rabaa inaan baxsho 15 GB markaan rabo inaan baxsho waxaan leeyahay halkii GB wuxuu la mid yahay 1024 MB oo la mid yahay. So waxaan ku dhufanaa 15 GB waxay noqonaya 15360. Okay inta imaan waxaa leeyahay 15360. So shrink volume deh so 15 GB oo unallocated ah meeshan yaala inta imaa extend waa liiga diiday miga aqbala extend inaan so toolka aan rabo inaan ku sharaxo wuxuu yahay waxaa la yidhahdaa MiniTool Wizard MiniTool Partition Wizard linkigana description-ka ku dhigi doonaa si aad ula degtid. Toolkan waxyaabo badan oo aad u tiro badan lagu sameeyaa sida in partition xitaa backup looga qaato partitionna kale lagu kala jejebiyo hadda partitioniskayga hoos kasoo muuqanayaan sug. So toolka waa kana markaa rabtid inaad mid extend ku dhahdid haddaa siduu kaaga diidayay waxaa imaanaysaa hadda C drive-ka imaanaysaa extend yaa leedahay extend yaa ku ballaarinay marka waxaad dooranaysaa partitionka hadda meeshan waa tanaa waxay tahay unallocated waaye. So maxaa u rabtaa marka how much space do you want it? So waxaan u rabaa total space aan rabaa nisaan ka rabaa 5 GB aan rabaa 4 GB 2 GB kulli haddaa rabtid waxaa leedahay ku ballaari extend ku dheh okay aa leedahay. So hadda extend waa ku dhahay meeshas waxay noqon doontaa 294 GB
kan oo ida waxaa laga jebin doonaa intaasoo GB waxaana la geyn doonaa C drive-ka ma ogoshahay marka meeshaan hadda apply haddaa ku dhufto wuxuu dhihi doonaa waxaan kugu yacni strongly recommend all applications haddaa yes dhaho micnaheeda dhammaan applicationska hadda aan isticmaalayo way xirmi doonaan so applicationska inaa xiro waa ku khasbanaa hadda marka application so markii uu howsha dhameeyaan isku soo laabanayna insha allah so macnaha markii aad rabtid inaa extend ama hard drive-ka la tacaamishid mar walba wuxuu recommend kuu siinaa in aad applicationska dhan xirtid so hadda C drive-kayga hadda waxay noqotay 294 GB so aan soo aragno marka meeshaan oo ujeedaa beri hadaayo waxay ahayd 69 GB ayaa kuu banaan hadda waxaa ii banaan 79 GB kana waxaa laga jaray halfka ka soo jaray so sidaas ayaa mar walba extend hataa haddii 30 GB u baahan tahay extend inaa kusoo dhahatid meesha C drive-ka marka waa kaasaa qaabkaasa extend loogu dhahaa adoo isticmaalaya applicationkan waxaa ka heli doontaa linkiga descriptionka ka heli doontaa so waan filayaa in muuqaalkan waan kugu soo kordhiyey fadlan haddii ay tahay marka ugu horeysayna soo boqoto channelkeena noo subscribe gareey muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada ku mahadsantahay doorashada